السلام عليكم maanta waxaan tusaya qaab uga maarmi kartid xawlaadaha Soomaaliya oo kaleeto oo aad adoo dhex maraya Bitcoin lagugu soo diri karo $100 oo dollar ahaan ma aha Bitcoin ahaan boqolkii oo $100 lagugu soo diri karo waxa isticmaali kartaan app-kan la dhaho Blink waxa la jiray Bitcoin Beach Owl aabka wuxuu ku jiraa qaabka ugu fiican ama ugu waaweyn ku jira kumali app-ka waa app ugu safe gareysan laakiin waa app ugu fudud ku jira marka waxa leedahay receive meesha ka taala ku dhufanaysa marka ku dhufatid qofkii oo matalan ba adduunka meel kale jooga adoo Soomaali jooga waxa u qoraysaa sawirkan baa u diraysaa QR code ka laho copy baa leedahay ama meesha copy ku taala copy ku dhufanaysa marka ku dhufatid qofkii waxa u diraysaa WhatsApp ka kaleeto qofkii wuxuu sameeyaa wuxuu ku soo dirayaa wuxuu galayaa website-da Bitcoin laga gato sida Binance iyo Coinbase oo kaleeto Bitcoin qiimo u dhiganta oo $100 soo gadanaya kanuu kugu soo diraya kan ma kugu soo diro meeshan balance-ga hadda zero-ga ah waxay ku noqonaysaa $100 $100 bay joogaysaa marka hadii Bitcoin kor u kacdo iyo hadii hoos u dhacdo saameyn kugu yeelan mayso oo qof Bitcoin haysta matiida waxa tahay qof dollarkii haysta US dollar haysta baa tahay marka hadaan hadda tusaale ku isku soo diro waxa tagi app-kan kale wallet of Satoshi la dhaho waa app-ka ugu fudud oo ku jira ma aha kan ugu safe gareysan laakiin ku ugu fudud ku jira hadda 169 cents oo wax aad u yar oo 169 sats waa chachku markii Bitcoin la jajabiyo la dhahaa waxay u dhigantaa 5 cent oo kale oo dollarka baan rabaa inaan diro waxaan leeyahay send baa ku dhufanaya markaan ku dhufto base meesha ku taal hoosaan ku dhuftay marka isla markii uu soo qabtay ciwaankii imisa diraysa marka waxa leeyahay 169 waxa leeyahay 168 hal senti wuxuu ka qaadanay hal sat wuxuu ka qaadanay senti ma hal sat oo wax aad u yar senti 100 jeer la jajabiyo ka yar weey marka waxa leeyahay send baa leeyahay hadda wuu diray aan ku noqono marka kii kale laakiin meesha ever ahayd 0.04 cents baa soo dhacday 0.00 cents kaas meesha joogaysa marka Bitcoin ama hoos u dhacdo ama kor u kacdo qadi waxba kaama gelin waxa tahay qof wadankii jooga oo aan rabin inaad Bitcoin kor kacdi iyo hoos dhacdi isu ku saameyn marka waxa sameyn kartaa qaabkeeba marka oo la soo bixi kartaa Soomaaliya wili way adag tahay anu kuma lihi dukaamada aqbalaya meel badan ba aqbalaya laakiin way jiraan dad hadda raba oo ka qaadanaya jira oo wadankii jira qaab loo isticmaalo qaab Telegram badan ba jiraan kuma lihi hal aamin Telegramada oo adoo ka taxadaraya laakiin waxa sameyn kartaa qaab baa jira laakiin wali waa limited way yaryihiin laakiin waxa imaan doonta mar dhow insha Allah oo dukaamo badan ama meel badan oo ganacsiga ay aqbalaan marka waxa sameyn kartaa markii meel badan ganacsiga aqbalaan adoo intaad qaadatid dukaankii aqbalayay badhiq ku siinaysa lacag kala baxay cuntada adiga waxa rabto ku gadanaysa hadda stable coin-ka ama stable satskan waxa aad loo isticmaalaa wadanka Turkiga oo wadan aad weyn oo lacagtooda waayadan ay ku jirtay hoos dhac badan ku jirtay qiimo dhac badan ku yimid dadka waxay ka caranayaan liiraha Turkiska inay haystaan marka waxay sameeyaan waxay haystaan stable coin-kan stable satska waligood $100 ama $1 taagnaanaysa aan halkii $1 kama hoos dhacayo ama Bitcoin ha kacdo ama yes dhicin marka dad aad iyo aad u badan ayaa isticmaala wadanka Argentina kamid ah iyadana wadamo badan baa laga isticmaalaa oo dadka intii xawaalad ahaan isugu diraan ay dukaamadii la tii kartid wax ku gadan kartid marka way imaan doontaa Soomaaliyana xawaaladaha Soomaaliya inkastoo ay cheap yihiin laftigoodu oo wadamada kale aan la mid ahayn laakiin challenge way ku noqon karaan aabkan Bitcoin hadda u jeedas waxaan soo dirayaa wax hal senti ka yar ayaan dirayaa wax lacag badan igma baxayso marka hadii qaab fudud la sameeyo oo dadka wadankii dadka Europe ama qurbaha jooga ama Mareykan jooga ay fahmaan inay tan ka raqiisan tahay waxa dhici karta xawaaladaha inay challenge la galo tan kale wadankii waxa haysta shirkado oo lacagta dadka dhan haysta iyadoo laftigooda challenge ayaa la gali karaa oo waxay sameyn karaan qofkii lacagtii awal lacagtaada waxa haysta shirkadaha telecommunication haya laakiin aabkan kale hadii soo baxaan lacagtaada ayaa adaa haysanaya adiga qof private haysanaya kan wali ma ahan aababkan ma ahan kuwa 100% ugu safe gareysan laakiin kuwa safe jira oo adiga passwordkiisa haystid oo cid ka qaadi karta aysan jirin ama cidna ka dhici karin marka waa mustaqbal dhow soo socda waxaan ku soo tusayaa videogan inay yihiin inaad ogaataan
inay jiraan qaab noocan oo kale lacag la isugu diri karo. Aad ayaa u mahadsantihiin. Wixii commentiya hoos kusoo qora. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.